mawaaguhu hoo dhalaalayba ma dhibcasiheer mawayda ma dhallahaan la jecel yahaa maxaalay ubaxa waa tadciyo gaagaaban oo ay isweydaarsanayaan inan tusma leydhaa iyo inan tukaano leydhaa. waxa ay ka turjumaysaa qaabka ay noloshu isku bedeshay waqtigan. tukaale waxa uu ka yimid baadiye manuu arag noloshan casriga ah ee magaalooyinka taala iyo dunidan kale. tusma waa inan ka soo horeysay oo magaalooyinkan iyo casrigan dunida soo gashay oo la jaan qaaday, mana iyadu rabto in ay la jaan qaado nin baadiye ka yimid oo aan la socon noloshan isbedeshay. tukaala ku horeeyo wuxuu yidhi, tusmoy doob isku tuntaan ahoo ku taamaya inuu qoys yagleelo, xooggiisna tacbay haddaan kula tago kuu taago tabalcaare, kadin geela iyo adhi tiradii haddaan ku tisa waalidka, ducana tunka lagu buuxsho, aroosna laguu tumo, adoo farxad tan dhaafsan miyaadan ila tiirinayn tiraab kuu dhameeye. waa tukaale. tusma u jawaabto waxay tidhi, tukaalow haddaadan karoona iigu tumayn, ilaa waa inan iyadoo casrigan dunida iyo magaalooyinkan la qabsatay. tukaalow haddaadan karoona iigu tumayn, tintayda sare taaj ku qarinayn, doolarkoo tira beeliyo tukhun ilamaa dahab ku taxayn dhudhumahayga, toddobaadka xigana tamashlayn iyo dalxiis ii tallaabinba talaale, firooso adoo wata taarikadii u dambeysay, tu kale orodoo raadso oo kugu qaadato tabalcaaraha, anigu mid Yurub u tallaabay malaayiinna soo taabay ayuu qalbigaygu tabayaayey. waa inantiyada waa qalbi ka dhoof, waxay tagtay Yurub iyo meelahaas sii marasaayo inan yaroo dee bahasha hay doonaysa. ninka tukaalena waa nin geeli iyo dee tabalcaarihii iyo wixii baadiyaha yaalay buu isagu la socdaa moogti, waxaana ka sheekeynaysu fahmi waayey. waa kan haddana mar labaad buu la hadlay oo wuxuu yidhi, tani waa adduunyo tusmay waa laga tegayaaye, waxba ha ku taamin raaxadeeda, ha ku talagelin nasashee, hadalka runtiisa aan ku tibaaxay bal maskaxdaada tuuji. haddaad toob cad iyo taaj lagu xidhay, karuuna lagugu tumay, ogu guushu taa maahay, waxba yaan tashuush lagugu firin, jarna lagaa tuurine, maankaagan togan adeegsow, taariikhda wixii la soo maray, guurkana loogu talin jiriyo waxay diintu tilmaantay, tabaheeda raac. waa tukaala ku yidhi, markuu ka yaaba iyadoo karoonkan iyo maxaan ku dhaha batalaal iyo firoos iyo waxaana ka sheeganayso ayuu yaaba, ilaa in isagu nin baadiye ka yimid isagu waxaan waramahaye. haddana tusma u jawaabtay, ninkan waxuu ka sheekeynaya waa naga tag bay ku tiri adeer meelaha ilaahay qabaniyo hanagu meereysane, anagu waxaan doonaynaa nin xagga ka yimid oo xogaa doolara sidee. markaasay tidhi, tukaalow maxaan maankayga togan adeegsadaa, tan iyo waagaan tis qaadeen 17 gaadhay, lacag baa laygu talaalo hankayga ku tiirsanaayo, miyaanad ogeyn inaan tuuray amar waalid, ducana aan kaba tegey. ta waxay tidhi adeer waalidkaygiibaaba igu kari waayey, ku xagaa ka yimid adu maad ka rasaabade. tubtii qarniyo ku talin jireen aabbayaasheen, haddaad adigu ku taagantaho tusmo toosi leedahay, towsiniyaanad ka qaadin casrigan dunidan, anigu taar kula socdaayo waan tashaday waa hore. waa inantiiba saa ku tidhi, maxaa inan yaro waalidkeediiba kari waayeyo inan hagaagsanoo diin la soo guursiyo waxaan ugu kari waayey. waxay doonaysaa in maaragtay karoon iyo loogu tumo daba talalana la geeyo maalmaha oo kawdhe. markaa bal qaybaha kalena waan eegi doonaa iyadoo halka sii marta maansadu iyo bal waxay iskugu jawaabaan. iminka tukaale laga sugaya hadal oo iyada sugaysa wax bal waxa ku yidhaahdo dib baan ka eegi doonaa insha allah. ma dhibcasiheer mawayda